kulanti wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan. Tan iyo intii aanu baahinay muuqaallo aanu kaga hadlaynay tacdiyada dadka Soomaaliyeed ee dalka Turkiga caafimaadka u taga loo geysto oo ay u geystaan waa sida hadalka loo dhigay turjumaanada Soomaalida iyo dhakhaatiir ayagu markaas siyaabo kala duwan ooga kulumaysta dadkaas dhaqaalahana aad iyo aad ugu dallaca. Mithaal ahaan, qof ayaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo 10,000 baa laigu daaweynaya lagu yidhaahdo, markuu yimaado Turkigana waxaa laleeyahay daawadaadu waa 60,000. kuma uusan soo talagelinin, meeluu ka noqdo ma joogo. Qalliin baa lagu bilaabay baa laga yaabaa, ama daawo loo bilaabay. Waa mushkilo weyn bay noqotay. Arrintaas ayadoo ay sidaas tahay ayaanu fiidiyoyaal fara badan aanu soo gudbinay, muuqaaladaas ayaanu idinla wadaagnay. Dadka Soomaaliyeed dunida daafeeda jooga ayaa markaas in badan oo ka mid ah nala soo xiriirtay oo dhibaatadan aad uga cabanaysa. Sidoo kale dalka Malaysia iyo dalka India ayay ka jirtaa. Hase yeeshee caawa waxaan idiin hayaa wax aad ku farxdaan haddii Alla yidhaahdo, iyo weliba wax inaan ku farxi dooninin. Haddii aan warka xun idiin soo hormariyo marka hore oo aynan ku farxi dooninin, safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga mas-uulka ugu sarreeya ee ambasadoorka ka ah ayaan anigu la xiriiray muddo iminka laga joogo 10 maalmood, oo aan isleeyahay waxay ku beegnayd 13 ama 12 bishan labaad aanu ku jirno. 10kaa cisho mas-uulkaasu marnaba taleefonkana naguma soo celino, qoraalkeennina kama uusan soo jawaabinin. intaas waanu sugaynay, waana u dulqaadanaynay. hase yeeshee waxaa soo baxday dadkii la kulmay uu la sheekaystay inuu u sheegay cabdixafiid nin la yidhaahdo inuu daba socdo, ceeb iyo fashilno uu soo socdo. sidaa awgeed loo baahan yahay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ka dhisan ee Sheekh Maxamed uu hogaamiyo in la kala diro si asaga ceebtiisa loo qariyo, safaaradduna aysan u ceeboobin. waa sida dadka asaga la shaqeeya ay iisoo sheegeen. haddaba arrintaas ayaan aad iyo aad u qariibsaday, waana wax lala yaabo mas-uul Soomaaliyeed inuu sidaa u hadlo haddii ay dhab tahay. haddii xaqiiqo loo baahdo, waxay ii sheegeen shaqaalahan iyo shacabkan Soomaaliyeed ee dalka Turkiga degan ee safiirka ka agdhow inay diyaar u yihiin inay ku markhaati furaan barqadii. laakiin waxaan jeclahay arrintu inaysan intaa gaarinin, ee safiirku uu u adeego dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee tacdiyada loo geysanayo, ee uu ka xishoodo. waxay gaf ku tahay inaad u shaqayn weydo shacabka Soomaaliyeed. markaad la sheekaysatay ay leeyihiin inuu safiirkeenni iyo safaaraddeeni noo shaqayn weydo, waxay gaf ku tahay qaranka Soomaaliyeed, waxay gaf ku tahay calanka safaaradda suran, waxay gaf ku tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. sidaa waxaa odhanaya dadka Soomaaliyeed ee adeegii aasaasiga ahaa iyo matalaadii ka waayey safiirka Soomaaliyeed iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya. walow la ii sheegay dadka qaarkood safaaradda ka shaqeeya in ay jecel yihiin dadka inay u adeegaan, laakiin mararka qaarkood safiirku uu hor istaago. waasay hadalka u dhigeen. markaad aragtid hooyo Soomaaliyeed oo ilmo yaroo saqiira wadata oo la yidhi ilmaha yar xanuun baa laga helay, ama kansar baa laga helay, ama wax kalaa laga helay, wuxuuna u baahan yahay in la qalo, ay safaaradda u timaadee dana ka soo yeelato, ee safiirku u yidhaahdeen la iisoo daynin. xaqiiqatan wax laga xumaado weye. qof ma ahan, laba ma aha, 3 ma ahan, ciiddaa wax ka badan oo dad ah ayaa nala soo xiriiray oo kulligood ka cabanaya adeegga safaaraddu ay fidiso. qaar waxay leeyihiin meeshaanu safaarad maahane waa guri nin leeyahay. waxaan safiirka mar kale ugu baaqayaa inuu ummadda Soomaaliyeed ee magaciisa uu matalo, ee ayaga u shaqeeyo, ee uu u yahay shaqaale. safaaraddu waxay qabato intaasoo keliya, danta dadka dalka aad u joogtid unbad u adeegtaa. inaan fursad u siiyo inuu bulshada la hadlo. haddii uu safiirku bulshada la hadli waayo, baaq horo fara badanna waa u diray. annaga waxa keliya xilkana saaran waxa uu yahay, waxa jira inaanu soo bandhigno, dadweynaha Soomaaliyeed baanu u daynaynaa. waxaan jeclahay safiir inaad ka jawaabtid baaqan, iyo aan kuu soo dirayno su-aalaheennana aad ka jawaabtid. tacadiyada dadka safaaraddu ay u geysanayso, dhaqaalaha dhabalka ee laga qaadayo, aysan awoodinin, qaarkood albaabada laga xiranayo. waxaa kaloo igu maqaalaa oo dad safiirka ka agdhow ay ii sheegeen inuu safiirku dabeecad u tahay dadka inuu taleefonka qabano ku dhagaysto. waa wax laga xishoodo weye, waa haddii ay dhab tahay, caddayn ma hayo.
laakiin anigu waxa aan arkay oo dhabtaa waxay tahay 10 maalmood inuusan marna taleefon nagu soo celinin, marna naga qabanin, xataa uusan qoraal noo soo dirin oo warniyahow waa maxay waxa laga cabanayo, mashquul baan ahay, hala ii dulqaato, waa soo socdaa. qofka mas-uulkaana sidaa ayaad ka firmaysay. waxaan kategori kale caddayn karaa oo kale safiirku inuu qoraalkaygii helay, taleefonkaygana u arkay. jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga ayaa waxay leeyihiin whatsapp groupyo ay ku shiraan, hadday ardayda ahaan lahayd, hadday jaaliyadda weyn ahaan lahayd. waxaana socda guux ka dhan safaaradda iyo shaqaalaheeda ee safiirku hogaaminayo. waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo, safiirka isma naqaano, maanaan wada hadlinin, wax xumaan oo shaqsiya naga dhexeeya ma jirto, weligii waxba iima geysanin, aniguna inaan isaga wax u geystay ma qabo. haddii isagoo wax iga tabanayo waxaan jeclaan lahaa inuu sheegto si aan u raaligeliyo. laakiin bulshada soomaaliyeed ee baaba'san, ee rafaadsan, ee silicsan, ee dhaawaca iyo dhiigga uu ka da'ayo ha loo adeego. safiirkan waa u sheegaynaa, waana ku eedaamaynaa. waxaan u arkaa waajib qaran inay tahay inaan gudano. intaa haddaan oga baxo safaaradda iyo musuqeeda iyo isdabamaridda iyo hagardaamada iyo baxdiilka shacabka qaarkood ay ka sheegayaan, waa say hadalka u dhigeen. haddaan ka gudubno, waxaan jeclaan idiin gudbiyo qeybta labaad ee aad iyo aadka u xiisaha badan. qaybtan ayaa waxay tahay 2 isbitaal oo waaweyn oo ku kala yaala magaalooyinka waaweyn ee caasimadda dalka turkiga ee ankara iyo weliba magaalada qadiimka ee faca iyo taariikhda weyn ee istanbul. labadaa magaalo 2 isbitaal oo ku yaala, dadkii ka shaqaynayay inay nala soo xiriireen oo ayagu asalkooda ay yihiin turki. mid ka mida isbitaalkaas waxa ay ka xun yihiin dhibaatadii dhacday, iyo eedaynta loo soo jeedinayo. waxa ayna bilaabeen waxa loo yaqaano internal investigation. gudahooda ayay waxay ka bilaabeen baaritaan rasmi ah. baaritaankaas ayaa waxa uu ku wajahan yahay shaqaalaha isbitaalka iyo weliba dadka soomaalida u turjuma. waxayna iga ballan qaadeen inay nala soo xiriiri doonaan waxa ay maxayti soo helaan oo markaa macluumaad ah iyo waxay qaraar ku gaareen. meesha isbitaalka kale, shaqsi ka shaqeeya oo sawiradiisa iyo magaciisa in badan la ii soo gudbiyey, in badanna aan taleefon iyo taxi message ku raadinayay, hase yeeshee marnaba aysan suurto gelinin in aan aniga isagu wada hadalno oo aan fursad u siiyo eedaynta loo soo jeedinayo uu ka jawaabo. xasuusna u daawade, qof kasta waa bilaa dembi inta maxkamadu ay ka caddaynayso. annaguna maxkamad ma nihin, laakiin annagu waxaanu baaraynaa oo keliya eedaymahan iyo waxa dhabta ah oo ka jira. siday doontaba ha ahaatee, ninkaa dhakhtarka ayaa ila soo xiriiray. waa shaqsi aad iyo aad u kibiro badan bay soomaalidu ii sheegtay. qof kastoo soomaaliya u tagana isagoo caraysan oo lagu soo qayliyey ayuu ka soo baxaa qolkiisa, sababa anigu aanan garanaynin. laakiin inta badan waxa ay dadku sheegeen inay la xiriirto arrimaha dhaqaalaha ku saabsan, oo uu kor u qaado dhaqaalaha, ballankii horena uu ka baxo. misaal ahaan, waxaa lagu saarayaa baa lagu yiri iskaan baa lagu saarayaa. iskaankaas waa $1,000 ama waa 500 ama waa 2,000, wuxuu doonaba ha ahaado. markaad iskaanka kasoo baxday baa lagu leeyahay kan ma cadda, mid kale ayaanu ku saaraynaa, lacagtii iyo lacag lamid ayaad bixinaysaa. adeer hadduu iskaankaagu shaqayn waayey, aniga maxaa lacagta iga qaadaysaa kale? lacagtii iskaankaad ii sheegtay waa ku siiyey. isbitaalkaas ninkaas ila soo xiriiray wuxuu isku dayey in uu darawal iyo garwadeen ka noqdo baaritaankeenan aan wadno ee bulshada soomaaliyeed ay darawalka ka tahay. wuxuuna isku dayey inuu steerinka la wareego uu aniga ii sheego baaritaanku meeshuu ku habboon yahay inuu aado iyo waxa xaqiiqado ay tahay iyo in laga leexiyo baaritaankan aan wadno. maxaa yeelay waxaa isku dhacay oo aan idiin sheegayaa dadkii turjumaanka ahaa ee soomaalidaha oo ka baqanaya magacyadooda iyo sawiradooda in la baahiyo, maadaama soomaalida dad istaqaano ay tahay, iyo dadkii dhaqaalaha dadka soomaalida ka qaadanayay. haddii aniga oo london jooga iyo adigoo turkiga jooga ama dunida daafaheeda aanu samayn karno in hooyo soomaaliyeed laga xishoodo oo sumcadeeda iyo sharafteeda loo ilaaliyo, xaqiiqatan waxaanu oran karnaa waa wax lagu farxo. waxayna ku tusaysaa bulshadu hadday danteeda u istaagto inay wax walba qabsan karto. iskaashata ma kufto, hadday kuftana ma kici weydo.
ninka odaygaa wuxuu isku dayey inuu siyaabo fara badan iila hadlo oo ay ka mid tahay in uu yidhaahdo waxaan aad baaraysid waxba kama jiraan, isbitaalku waa isbitaal wanaagsan, qof kastoo soomaaliya noo yimaada isagoo faraxsan buu tagaa, adeegyo bilaashaan u fulinaa iyo waxyaalo la mid ah. waxa uusan ogeyn inaan hayo risiidyadii isbitaalka oo lacagtoodu ay midba midka kale ka badan tahay. qofkii lagu yiri 20,000 baa lagaa qaadayaa oo dollar, in la yiri waxaa lagaa qaadayaa 60,000. qofkii la yiri waxaa lagaa qaadayaa 15,000 oo dollar, lagu yiraahdo waxaa lagaa qaadayaa 35,000 oo dollar. kulligoodna ay ku saaran yihiin ay isbitaalkaas ay ka wada yimaadeen. qoraalkiisa oo aad iyo aad u dheeraa, xaqiiqatan isku dhex yaacsanaa oo uu ka muuqday khalkhal fara badan oo fartiimaha qaarkood 10 jeer uu ku celinayo, uu aad iyo aad u dhaaranayo, maadaama haddii aad run sheegaysid waxaad u dhaaratay ma jirto. caddayntii waa tana black and white waaye, salaamu calaykum, ciddii waxay u haysataa ay soo doonato. way ku habboonayd inuu yidhaahdo haddii uu saxsan yahay. laakiin dadka qaarkood marka aad arrintan u bandhigtid waxay leeyihiin waxaanu sheegaynay ayaa halkan ka socda, meeshaan waxaa ka socda dad maaragtay aan sida saxda ee dhakhaatiirta u shaqaysa aan u shaqaynaynin ee burcadbadeeda waase say dadka ayuu hadalka u dhigeen weeye. haddaba ninkaa waxyaalaha uu igu yiri waxaa ka mid ah, kaalay oo adigu turkiga imow, annaga ayaa tigidkaa soo bixinayna. si fiican u daawo saaxiib. kaalay cabdixafiidow, dabcan fideoyaashii baa loo turjumay, magacaygii oo saxa ayuu soo qorayaa markuu ila hadlayo. I don't know berlahouse inay ka tahay, inay ixtiraam tahay. ixtiraam baan u qaadanaynaa at this stage because waa early stage. kaalay oo dalka turkiga imow, tigidka annaga kaa soo bixinayna, isbitaalkeena kaamaradaada la soo dhexgal, wax walba waa kuu furaynaa. filinkaas ninkaa odaygaa idinla hadlaaya waa hore ayuu daawaday, waxaa looma sheego. maxaa yeelay haddii waxaa inta la ii sheego hotel la ii dejiyo, tigid la iga bixiyo, oo jeebka la ii soo buuxiyo, oo afka iska masax la yidhaahdo, oo kaamarada yar aan soo daayo, anigoo leh isbitaalkan waa fiican yahay. hadday hooyada soomaaliyeed ee burada ku taalo ee taahaysa odayga soomaaliyeed ee la yiri waxaad u baahan tahay qalliin wadnaha ah, ilmaha yarkaa saqiirkaa ee xubinta taranka ay xanuunaysay habeen iyo maalintaha iyo hooyadeedna ilmadu ay ka socoto, hadday habaarta xaggee baan tegaya. maanan u daqranaynin. kuwa yaryaroo kuwaas la midayso anigu ma dhalinin. sumcadaadii iyo magacaaga ma waxaad ku gadanaysaa hotel lagaa bixiyey. turkiga ingiriiska waxaa looga aadaa $120. haatan cid aadaaba ma jirto maadaama coronavirus uu jiro, tigidku aad buu u jaban yahay. marka saaxiib, haddaad moodaysa inaad $120 iyo 2 maalmood oo hotel ah iyo bariis la isiiyo aan ku gadanayo, waxa weeye saaxiib, halkan soomaali gaari lahayn. baaritaankii waa socdaa. safaaradda soomaalida ee safaaradda muqdisho ku taalla waxaa gaaray qoraalkeenii, waanu hubnaa. safaaradda ingiriiska horeen kuu sheegay waanu gaarsiinay. madaxweynaha Tayyip Rajab Erdogan oo ah mas-uul muxtarim ah, ixtiraamna naga mudan, dadkeena iyo dalkeena garab istaagayna, waxaanu gaarsiinay xafiiskiisa warqad. waxaa noo dhiman oo keliya wasaaradda caafimaadka inaanu gaarsiino warqad ku socota ka dhan arrimaha aanu baarayno oo keliya. waxaan rabbi ka baryaa maalmaha soo socda iyo weega soo socda, dowladu waqti badan bay qaataan inaanu jawaab ka helno. waxaanu pressure saarnay sidoo kale dowladda Soomaaliya arrintan inay faragelayso, laakiin tartiib bay u socdaan. waxaadna garan kartaan xaaladda dalkeena uu ku jiro. waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo, dalka turkiga yaan la aadin cabdixafiid marnaba ma oranin. dad fara badan ayaa isoo garaacaya oo la turkigan u soconnaa ma la aadi karaa, dhakhtarkee wanaagsan. dhakhtarka wanaagsan ee turkiga ku yaalla ma aqaano. haddaad hooyada u wadid adaa ka mas-uulay soo ogow. haddaad aabbaha u wadid adaa ka mas-uulay ogow. haddaad qof kaloo ehelkaaga qaraabadaada u wadid adaa mas-uuliyaddaas ku saaran tahay, aniga ima saaran. waa la yirina meel ha ku tegin. soo sahami oo ka hor oo tag marka hore, soo eeg, soo hubso wax walba. isku day qof luqadda yaqaana inaad tahay, ugu yaraan fahmaya luqadan aan ingiriiska, si aan lagu dhicinin ama lagu boobin. qofkii aan rabin inuu ingiriiska kula hadlo, maadaama la ii sheegay inay qaarkood aysan ogolayn inay ingiriiska ku hadlaan. shakhsigan ila soo xiriiray baa ka mid ah dadka Soomaalida markay u tagaan wuxuu diidaa inuu ingiriis kula hadlo. laakiin aniga wuxuu ii soo qorayaa ingiriis wanaagsan, laakiin khalkhal uu ka muuqdo isagoo doonaya maaragtay inuu justify gareeyo waxyaalo fara badan, anigana steerinka uu ii qabto. I do not like to be led by anybody. qof aan ka yeelaya inuu inta indhaha iga xira gacanta i qabto
oo asagu idaadihiyo da'dan iminka aan jiro ma jiro saaxiib saa ku seexo kusoo toos sidaa awgeed dalka turkiga aada waa dal fiican waa dal wanaagsan laakiin waxaa ku jira shakhsiyaad soomaali iyo turkish ah oo doonaya jeebkaaga waxa ku jira inay qaataan adigana aan dankaa lahayn so far waxa aan ogaanay taa weeyaan waxaan hayaa muuqaalo dad lagu qalay isbitaalladaas oo haddaa aragtaan youtube kuma ogola in laga soo daayo muuqaalada noocaas oo kale ah they horrifying scars waxaa la yidhaahdaa dhaawacyo aan inaba caadi ahayn oo dadka ku yaala risiidyadoodii baanu haynaa marka dalka turkiga madaxweynaha dalka turkiga shacibka turkiga dowladda turkiga sharaf iyo karaama u haynaa baaritaankeennan iyo arrimahanuna ma aha inuu turkigu xun yahay laakiin shakhsiyaadkaas inaan tilmaano waa daruuri weeyaan ugu dambayntii saaxiibayaal waxaa baaritaankan garab socda baaritaan ka dhan go turki shirkadda la yidhaahdo saldhigeeda uu xamar yahay ama muqdisho canjaradu say u kala koreyso ayaa loo kala qaadaa bay dhahaan ration gani becoming maxaa la qolyahaas dib baan ooga imaan doonaa for the meantime waa idiin mahadcelinayaa fadlan muuqaalkan dadka soomaaliyeed gaarsiiya una sheega xaaladdu meesha ay marayso sharaf iyo karaamay noo tahay ugu dambayntii waxaan mar kale abiil u dirayaa safiirka dalka turkiga u fadhiya soomaaliya inuu bulshada soomaaliyeed baaqeeda iyo cabashadeeda ka jawaabo barnaamijkan waxaa idiin soo saaray weliya cabdifataax cali shirwac anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca idinla socodsiinaya adigaa daawanayay intaanu kale dib ugu kulmi doono mar dhowna sarmayna haddii ilaah yidhaahdo hees baa jiri jirtay la oran jiray harsan mayno saasoo kale waaban mayno